ilaa iyo hadda ma cadda hanaanka loo mari doono doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya haddii la waayo hanaan doorasho oo hal qof iyo cod ah, iyadoo dowladda hadda jirto ay ballan qaaday markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka loo magacaabayay inuu dalka gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah. cabdirashiid khaliif xaashi oo agaasimaha macadka heritage ayaa Jabba TV ugu warramay arrimaha doorashooyinka. waa ballaaran tahay website-keygana waa laga helayaa laakiin nuxurku waxa weeye kow waxaa noo soo baxday inay aad u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababo amni iyo sababo siyaasadeed oo dhulkii qaar shabaab haysto qaar kale isa goosteen iyo dhaqaalihii ay dalbadeen maxaa la yidhahdaa guddiga iyo sharciyadii la sheegay iyo waktiga duruufo badan waxaan fiirinay hal qof iyo hal codka adduunku yaqaano inaysan suuragal ahayn baa noo muuqata. sidaas darteed waxaa kaloo noo muuqda aan dadku ay ku talinayaan in ku darsasho baarlamaanka in waqtiga ku darsado inaysan habboonayn. saddexna in ay suuragal tahay inay nooc doorasho ah wax lagu heshiiyo. sidaas darteedna inta goor tahay dowladda federaalka qaybo badan ka kooban oo aqal sare iyo aqal hoose iyo xukuumad leh ama goboleedyada iyo xisbiyadu inay hadda ku baxaan inay sanadkii barka haray ay ka doodaan kuna heshiiyaan hanaan. waxaana soo bandhignay ilaa 4 hanaan oo kala duwan oo 4 la toddoba iyo labaatanka May 2020 ayaa ahayd markii loogu talagalay in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan in hadaljeedin ay ka dhiibtaan baarlamaanka hortiisa, balse kulan gaar ah oo dhexmari madaxda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyey in dib loo dhigo ilaa iyo bisha Juun 27-keeda. diyaariyeen shuruucda waxay ku soo dareen qodob ay leeyihiin haddii aafa ay dhacdo masiibooyin ay dhacaan qodobkaasaa loogu gudbayaa. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay golihiisa wasiirada ayaa ku adkeeyay in doorashada lagu qaban doono waqtigeeda. dalkan 4 sano mar inuu doorasho galo doorasho dadka intooda badan haddaanay kulligood isla ogolaan intooda badan isla ogol yihiin stakeholderska waddanka badankooda dhan ama kulligooda qayb ka yihiin doorashaha ayaa ka dhici jirtay waddanka noocay rabtaba ahaato waana waxana siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale taasi oo soo dhaweeyeen xisbiyada mucaaradka. waxaan u aragnaa inuu yahay hadal soo dhaweyn mudan dhiirigelinayana saamilayda siyaasadda dhiirigelinaya maadaama ra-iisul wasaaraha uu sheegay in oo doorashada xilligeedii lagu qabanayo taladana ay dhexda u taallo dadka siyaasadda Soomaaliya saamilayda ka stakeholders waxaanay dhahaan. waxaa kaloo aad muhiim u ah in garowshiyada iyo fahamka ku aadan inay doorashadu lafdabar u tahay xasiloonida iyo ammaanka dalka mudnaantana iyada ay ka leedahay wax kastoo idil. marka ilaa haddeertaan hadalka ra-iisul wasaaraha annaga waan dhiirigelinayaa waana soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa in ficil loo turjumo oo hadal dhaafo. laakiin ilaa ay hadda ma cadda doorashada uu Mudane Xasan Cali Khayre ku dhawaaqay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilligan waxaa hortaagan arrimo culus sida waqtiga rasmiga ay la qaban doonaan doorashooyinka, hanaanka loo mari doono iyo sistamka loo soo xili doono baarlamaanka iyo guddiyadiisa
iyo madaxda dalka Soomaaliya qaadka la dooran lahaa. Istiwan kali buugo kaardiyarsan ka qaado